بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada akhyaarta sharafta leh. Barnaamijkeena maanta wuxuu mataqaanaa daaran yahay in aan wax iska weydiino sida aad mawduuca horey ugu aragteen muhiimadda ay leedahay maalinta la yiraahdo 15 May oo ah maalin qaran oo Soomaaliya looga aqoonsan yahay inay tahay maalin qaran loona dabaaldegayay intii xorriyadda la qaatay iyo wixii ka dambeeyeyba iyo ka horba. Marka maalinta 15 May tirsigeeda wuxuu kasoo bilaabanayaa 1943 bishii May 15keedii. maalintaas oo laysku raacsan yahay inay ahayd maalin loo aqoonsaday alkumidii waxa la yidhaahdo ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee af Ingiriiska marka loo akhrinayo la dhihi jiray Somali Youth League ama marka lasoo koobana la dhaho SYL. marka SYL sida maaragtay taariikhda in badan ku qoran waxa uu ahaa kacdoon ama movement waagaa jiray oo dib u kiciyey ama boor qaadis ku sameeyey baraarugii dadka Soomaaliyeed ay u qabeen inay helaan xorriyad. marka waxaa jirta intuu soo gelin waddanka waxaa jiray mataqaanaa saldanooyin iyo boqortooyooyin yaryar iyo xitaa mataqaanaa iyo culimo hogaamisa deegaanada qaar. iyadoo sidaas waaqici uu jiro ayaa shirki Berlin Afrika lagu qaybsaday qarnigii 19aad dhammaadkiisii ayaa waxaa Soomaaliya soo galay gumeystayaasha aad ka wada warhaysaan. kadibna qaybna wuxuu ka dhigay maamuladii jiray markaas ee dhaqanka la xiriiray, qaybna wuxuu ka dhigay qayb uu xiray, qaybna uu la dagaalamay oo uu ka mid yahay sayid maxamed cabdulla xasan allah u naxariisto iyo dhammaantood. kadib marka waxaa jiray muddo maamulka uu jiray ama dowladihii mataqaanaa Soomaaliya gacanta ku hayay ay jireen oo uusan jirin wax mataqaanaa nidaam ah oo aan ahayn nidaamka ayaga hoos yimaada. markaas ayaa waxaa samaysmay baraarug iyo iska warhay dhalinyaro waagaa jirtay oo u badnaa dhalinyaro magaalada soo gashay inay samaystaan urur ayna ka shaqeeyaan dib u curashada ama helista qaran madax bannaan oo la yidhaahdo qaran oo ummadda Soomaaliyeed leedahay. marka dhalinyarada meelo kala duwan ay joogtay, meelihii kala duwan ay joogtay ayagoo duruufo badan oo maanta Soomaaliya ka jira ay ka xumaayeen waagaas ay waxay hirgeliyeen in ay taabageliyaan fikradda ah in la helo Soomaaliya xor. dhalinyaradaas marka waxay ku guuleysteen barnaamijkoodii muddo mataqaanaa waxay ku qaadatay ilaa 17 sano ilaa intii laga ogolaanayay Soomaaliya in maaragtay qaran gaarsiin wax la yiraahdo loo sameeyo ilaa 43 ilaa 50 muddo 7 sano ay ku qaadatay in Soomaaliya xorriyad sax ah ay heshana muddo 17 sano ay ku qaadatay. so SYL waa la iskaga aqoonsadaa laakiin SYL ma ahayn urur gaar u ah koonfurta Soomaaliya. xubnihiisu waxay joogeen meelo kala duwan, waxay joogeen gobolka Soomaalida NFD la dhahayay, waxay joogeen Soomaali galbeed, waxay joogeen Djibouti, waxay joogeen waqooyiga. laakiin ayagana waxaa kaloo jiray ururo mataqaanaa gobonimo doon ah oo jiray, laakiin ururka SYL sida loo leeyahay wuxuu ahaa urur koonfurta kaliya ka dhisan, sax ma ahayn waayo meelihii ugu badnaa ee mataqaanaa dabaaldega iyo arrimahaas dhan looga sameynayay waxay ahaayeen gobollo kale. marka taariikhdaas kooban marka la tago Soomaaliya xorriyaddii markay heshay kadib wixii dhacay dhan waa ognahay, sheeko badan u baahan. laakiin mawduuca barnaamijkan maanta uu ku saabsan yahay waxaa waaye
maxay macno ugu fadhidaa maalintan iyo ururkaasi muxuu macnaa ugu fadhiyaa ummadda Soomaaliyeed? Em, maxayse isaga mid yihiin dhalinyaradii markaa joogtay iyo dhalinyarada maanta joogta? Em, marka dhinacyo badanaa iska taagi doonaa. Laakiin dhalinyaradu mar kasta waxay ahaayeen dhalinyaro isku duruufa. Em, waagaas dadku waxay u badnaayeen reer miyi, magaalada way ku yaraayeen. duruuftaa way inoogu kala duwanayd. duruufta kale oo ah inaysan dowlad jirin, oo dowlad iyo dad ay mataqaanaa wax ay mataqaanaa caawimaad ka helaan inaysan jirin, taasna waa duruuf la wadaagay. laakiin waxa ay dad isku kalsoon, hamina leh, oo raadinayo wax la yidhaahdo xorriyad, gobonnimo, oo ahaa wax ka bilowday badi Africa iyo Asiaba. waagaas wax jiray buu ahaa, ama momentum jiray inay dadku xorriyaddooda dib u helaan, oo xorriyad dagaalan la sameeyo, oo xataa ay iskaashadaan dadyooga xorriyadoonka ah. wax markaa jiray ahayd, oo dadkao dhan aada u raadinayeen. laakiin dhalinyarada maanta joogta total way ka duwan tahay. waxay kusoo beegantay muddo dheer oo qaran la-aan ah. waxay kusoo beegantay xilli ummad ahaan loo burburay, oo dadkii uu wada noqday dad mataqaanaa iyagu iska ganacsanaya. qof walba uu ka raadinayo mansab iyo waxaa la yidhahda maalin joogba uu ka raadinayo qof kale lugooyadiisa iyo qarankan mataqaanaa sarfaadiisa. marka duruuf adagay kusoo beegmeen. waxay kaloo kusoo beegmeen Soomaaliya markii ugu horreysay ixsaa'iyaadkii ugu dambeeyey oo la sameeyey. waxaa la aqoonsan yahay Soomaaliya inay tahay waddanka saddexaad ee ugu dhalinyarsan adduunka, oo mataqaanaa in ka badan 75% dadka Soomaaliyeed waa dad da'doodu ka yartahay 35 sano. 35 sanona waa da'da lagu mataqaanaa midowga Afrika iyo Soomaaliyaba ay u aqoonsan yihiin inay tahay da'da dhalinyarada ilaa 35 sano. marka 75% ka mid ah dadkaas populationkeenu waa dad dhalinyaro ah. boqolkiiba haddana 45 ka mid ah dhalinyaradaas waxay ku nooshahay magaaladii. waddan waxay joogaan ay burbureen waxaa la yidhaahdo traditional livelihoodski, ama waxaa la yidhaahdo kaabayaashii dhaqaalaha dhaqamiga caadada hore ahaa, asliga ahaa, asalka ahaa ay burbureen. xoolihii inaga burbureen sababo la xiriira mataqaanaa isbedelka cimilada. kalluumaysigii badaheenii ay dhibaatooyin badan ka taagan yihiin sababo la xiriira la xisaabtan la-aan iyo control la-aan waxa badeena la dhigaayo. waxaasoo idin marka waxay keeneen dadkii dhalinyarada ahaa ayagoo raadinaya nolol ka fiican nolosha miyiga, iyo mataqaanaa ayagoo raadinaya inay eheladooda caawiyaan inay magaalada soo galaan. waxay taas ay keentay, oo xataa la rajeynayaa 2025 in 4 milyan oo cusub oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay magaalooyinka soo galaan oo ay miyiga kasoo tagaan. taas waxay keentay marka shaqo la-aantii, haddii dadkii wixii asalka ay ka shaqaysan jireen ay waayeen, in magaaladiina aan shaqo laga helin. waxay u nuglaadeen marka dhibaatooyinka, waxay u nuglaadeen inay ka qayb qaataan mashaakilaadka waddanka ka jira, oo ay kow ka tahay ammaan darrada, ama dhinacay doonaan ha uga qayb qaataan, iyo barnaamijkay doonaan inay isku dayaan in mataqaanaa sifooyin khaldan ay wax ku raadiyaan, inay isku dayaan inay waddanka laftigiisa kasii cararaan, oo ay arkaan maaragtay inay meelo kale ay u hanqaltaagaan. marka arrimahaasoo dhan waa duruufo ka duwan duruufihii waagaa jiray oo maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ay wajahayso. dhalinyaradu keliya marka hadda la xusahayo waxaa la yidhaahdaa waagaas bay dhalinyaradu wax fiican samaysay. hadda laftirkeeda dhalinyaradu intii burburka laga soo kabanayay, khayrkeeda iyo sharkeeda mar walba khayrkeeda badnaa. haddaad aragtaan dadka ugu badan ee waxbarashada ka shaqeeya oo dadka waxbara waa dad dhalinyaro ah. dadka ugu horeeya ugu badan ee caafimaad ka shaqeeya waa dad dhalinyaro ah. dadka ugu horeeya ammaan ka shaqeeya ee qoriga wata ee dhimanaya maalin walba waa dad dhalinyaro ah.
waxaasoo idil ayay mataqaanaa dhalinyaradu oo adeegyo ay ummadda u qabataa. laakiin waxaa kala duwan waxa weeye waagaas marka laga sheekeynayo eh, eh, qarnigii 20aad bartamihiisii dhalinyaradu doorkay lahayd iyo dhalinyarada maanta way kala duwan yihiin. dhalinyaradii joogtay bartamihii qarnigii 20aad waxay ahaayeen oo ay lahaayeen dowr ama kaalin hogaamineed, laakiin dhalinyarada maanta joogta waxay ma haystaan kaalin ay wax ku hogaamiyaan, ama way ku yar yihiin. marka waxaa loo arkaa mushkilad. dhalinyaradii waagaa joogta waxaa loo arkayay faa'iido, waxay dadka waaweyn wixii maaragtay talo iyo xigmado ayay hayeen, wixii xoog iyo afkaar iyo howl dhaqaajinana dadka dhalinyarada ah looga dambeynaya ilaa mataqaanaa burburka laga soo gaaray. marka dhalinyaradaas ayaga ah ee maanta adeegyadaas wada waa in la qiro kaalintay ummaddu u hayaan. waa in la qiro kuwa caafimaad ka shaqeeya, kuwa waxbarashada ka shaqeeya, kuwa gurmadka ummadda soomaaliyeed baahan ka shaqeeya. ayagoo dhan waxaan u baahannahay inaan qirno mataqaanaa kaalinta ay bulshada runtii kaga jiraan. marka waxaan u iman karnaa waa maxay doorka hadda u bannaan dhalinyarada kasikow kaalmaha ay iminka ciyaaraan, ay ummadda ugu jiraan runtii laf dhabarta ah, gabdho iyo wiilalba kasokow maxay hadda kaalina oo dheeriyo intaas uga bannaan. runtii dhalinyarada kaalinteedu marna ma buuxsato, ama ha noqoto arrimaha mutadawacnimada iyo arrimaha adeega dadweynaha, ama ha noqoto arrimaha wanaajinta xaaladda iyo axwaasha ummadda oo ay kow ka tahay dhalinyarada waxaa la rabaa ku jirta nidaamka dowliga hadday tahay ciidan iyo dhisidda mataqaanaa ammaanka ummadda, inay runtii ay suurad wanaagsan u sameeyaan magaca dhalinyarada oo ay sida hagarleyda ay ugu dhimanayaan si lamid ah ay mataqaanaa usii wadaan oo ummadda ugu adeegaan oo mataqaanaa adeegyada qof walba adeega uu ummadda u haayo oo si fiican uga soo baxo. dhalinyarada soomaaliyeed 10 sano ugu dambeeyey runtii waxay ku jireen nidaamka siyaasadda waddanka oo ugu yaraan way ka dhex muuqdeen. marka waxaa la is oran karaa dhalinyaradaas ammaan iyo eedeynba way dhaxleen oo magaca dhalinyarada way soo gaarsiiyeen. ha noqdaan dhalinyarada jooga heer federaal ama ha noqdaan dhalinyarada jooga dowlad goboleedyada. waxa ugu weyn ama lagu ammaanayo ama lagu mataqaanaa dhaleecaynayna waxa waaye in ay mataqaanaa in aysan tusaale wanaagsan u noqon dhalinyarada soomaaliyeed oo howlihii lagu aaminay aysan sida ahayd aysan uga soo bixin. waa run oo dee soomaaliya horta duruufo badanaa ka jira. qofka dhalinyarada marka uu nidaamka siyaasadda iyo nidaamka dowladda u galana duruufahaasoo dhan ayaa soo xiraya. laakiin waxaa mar walba aan boos lahayn qof dhalinyaro ah oo banaanka markuu joogay ku ololeynayay in wax la wanaajiyo, ku ololeynayay in mataqaanaa waddanka isbeddel laga sameeyo, in markii uu gudaha galo uu maaragtay kamanaas noqdo oo wixii hore oo jiray uu qayb ka noqdo. marka waxaa la rabaa inaysan mataqaanaa aysan saas noqon oo dadka dhalinyarada meesha hadday galeen marba oo nidaamka ay galeen ugu yaraan nidaamka haddii aad waxba un ka bedeli weydo waa inaad adigu waxaa la dhahaa waa qaacido caadiya oo jirta, haddaadan mataqaanaa aadan xal ka qayb ka noqon karin ama xal aadan keeni karin waa inaadan mushkiladda qayb ka noqon. marka ugu yaraan qofku waa inuu isku dayo inuusan qarankan dhaawac kale uusan sii gaarsiin. dhaawac uu gaarsiinayana waxa weeyaan magacii uu watay iyo dhallinyaranimadii iyo wixii uu watay inuu burush mariyo oo uu dadku hadhow ay ka cararaanba qof kastoo dhalinyara. marka waxaan dhalinyarada soomaaliyeed iyo
meel walba joogaan iyo qaranka runtii aan leeyahay markale hambalyo. Ilaahay u naxariisto jannooyinkiisana ha ku arsaaqo dhammaan dadka Soomaaliyeed kasoo qayb qaatay halgankii xorriyadoonka. Dadka Soomaaliyeed 13-kan muunad iyo tusaale bay u yihiin dad badan oo Soomaaliyeed oo laga yaabo inaan la magac dhabin ama aan la sheegin ayaa ama mataqaanaa sacrifice badan ama tanaasul badan oo naf iyo maalba leh u sameeyey qaranka. Kuwii hore ha noqdaan ama kuwii dambe ha noqdaan, intiisa qofba ayaa haddeertan dib u curashada Soomaaliya iyo dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed, imise qof ayaa maalin walba naftooda runtii u waaya, maalin walba isku dhiga xabad iyo qarax iyo wax la halmaala. Marka dadkaas oo dhan ayay maalintan qusaysaa. Qof kastoo dhalinyaro oo service ama adeeg u haya qaranka iyo ummadda ayay waxay qusaysaa maalinta 15 May oo ay tahay maalin uu ay tahay inuu dabaaldego. Marka waxaan mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed siba dhalinyarada ugu baaqaya waayahan dambe waxaa batay social media oo noqday goob runtii wanaag iyo xumaanba lagu faafiyo, laakiin dadka ugu badan isticmaala waxay u isticmaalaan dhankii mataqaanaa aan wanaagsanayn. Marka waxaa la rabaa dadka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay mar walba ku waantoobaan waxa maanta qofka Soomaaliga ahi samaynayo waa wax iyo dhaawac uu u geysanayo qarannimada Soomaaliya. Hadduu dadka kala qaybiyo, hadduu dadka kala mataqaanaa caayo iyo wax walbaba, waayo waxaana waa documented waaye. Waxaan wax kasta aad maanta tiraahdo waa generations baa arkaya, hooyadaabaa arkaysa, aabahaabaa arkaya, caruurtaada arkaysa, asxaabtaadii arkaysa. Marka waxaa la rabaa qofku waxa uu isticmaalayo oo ummadda u sheegayo inay noqoto mataqaanaa wax uu jeclaan lahaa inay arkaan dadka isaga ehelka u ah ama asxaabta u ah. Marka insha allahu tacaala seshka ugu gaabnaa ujeedadiisa ugu weynna waxay ahayd inaan hambalyadaas iyo xusuusintaas aan sameeyo ku aadan 15 May oo ah maalin runtii aad u weyn. Marka waa mahadsantihiin. Haddii wax cid danaynaysa su'aal ama comment ku darsato insha allahu tacaala waa soo dhaweynaya. Okay. Su-aasha ah maxaa ay tahay kaalinta dhalinyarada maanta? Xaqiiqatan waa ka sheekeeyey. Dhalinyarada maanta kaalinta u bannaan waxa waaye inay ka qayb qaataan dowlad dhiska Soomaaliyeed heer kasta ay tahay, ama ha noqoto heer mataqaanaa magaalo ama gobol ama state ama dowlad dhexeba. Waxaa la rabaa dhalinyaradu inay dowlad dhis ka qayb qaadato. Dowlad dhiskuna maaha keliya in siyaasadda lagu biiro. Dowlad dhiska waxa waaye dadka ka shaqeynaya shaqaalaha rayidka ah ee ka shaqeynaya goobaha adeeg bixinta, ee ka shaqeynaya goobaha caafimaadka, ee ka shaqeynaya goobaha waxbarashada, ee ka shaqeynaya goobaha u adeegaysa mataqaanaa ummadda iyo dowladnimada. Goobahaasoo dhan dad ka shaqeeya ee ka shaqeeya mataqaanaa adeega ciidamada ama adeega ammaanka bixiya, in dhammaantood ay mataqaanaa horta isku aqoonsadaan kasikow inay meesha shaqeynayaan, waxa ay qabanayaan inay tahay wax ajar ay ka helayaan, wax ay ummadda iyo masaalixda iyo dowladnimada iyo mataqaanaa midnimada ummadda ay u qabanayaan inay u arkaan runtii. Dalka u bannaan oo ugu weyn waa kaas waaye. Kuwa siyaasadda ku jirana tusaale gaara ayay waxay u yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. Wixii ay sameeyaanna
waa burush ku xoqmaya iyo calaamad ku dhigmaysa magaca dhalinyarada. Marka waxaa la rabaa mataqaanaa in qofku intuu maaragtay dhowrsanaan karo inuu dhowrsanaado, intii uu wanaag samayn karo ummadda u samayn karo inuu sameeyo. dowrka kale u bannaan waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay aqoontooda kor u qaadaan, in ay ummadeenna waayahan dambe dee waxaa soo batay inuu yaraaday baraarugii waxbarashada iyo aqoonta. haddaad Soomaaliya hadda dib u eegtid goobaha waxbarashada maanta oo dowladnimo wax un jiraan iyo marka la eego 20 sano kahor 23 sano ka hor runtii maanta ayay liidataa waxbarashada Soomaaliya. so marka waxaa la rabaa waxa weeye dadka dhalinyarada ee inay waxbarashada ku dadaalaan, in ay waxa ummadani ay leedahay ugu dambeysa ay tahay oo waxa la yiraahdo awoodda dadkuna maaha siday marka waaweyn yihiin. awoodda dadka ee laga sheekeynayo waxa weeye waxbarashada ay dadkaasi leeyihiin iyo xirfadaha ay dadkaasi leeyihiin. marka si aan u helno bulsho leh khayraad dad leh awood dad, waxaan u baahannahay in kor loo qaado waxbarashada iyo inay dhalinyarada Soomaaliyeed heerkay doonaan ha joogaan ama mataqaanaa dugsiyada hoose dhexe sare ha joogaan ama jaamacadaha waddanka ha joogaan, inay xoogga saaraan inay waxbartaan, iskana yareeyaan waxyaabaha ka mashquulinaya waxbarashada oo ay ka mid tahay mataqaanaa baraha bulshada oo si khaldan loo isticmaalo. su-aasha ah tusaale caynkee ayay yihiin SYL Soomaali u yihiin. SYL waa muunad yar oo ka mida dhalinyaradii waagaa jirtay, waa tiro dhalinyaro ah oo tusaale u ah dhalinyaradii waagaa jirtay. laakiin anigu waxaan qabaa dadkii waagaa jiray ee 1943 jiray ayaa dad waxay ahaayeen duntoodu wanaagsan tahay, dad hogaamiyeyaala, dad mataqaanaa ay ku wada qanacsanaa baraarugii qarannimo doonka, baraarugii xornimo doonka. marka dadkaasna dadkii waagaa joogay oo idil marka ayaa waxay ahaayeen dad runtii ay arrimaha ay qaban wadaniyadda iyo wadaninimadu ay ka go'nay. innagana waxay noo yihiin tusaale aan ku dayano. sababta waxa weeye dad inaga cilmi yar oo maanta cilmiga yaala iyo maalintaas cilmiga yaalay maanta ayuu cilmigu badan yahay, imkaaniyaadku badan yihiin iyo agabka iyo fursadaha la haysto. tira ahaan waagaa dadkii noolaa iyo Soomaalida maanta nool waxay ka badan yihiin 10 jeer wax ka badan. marka dadkaasi ayagu duruufaha ku nool ayay qarannimo u keeneen oo meel kasta iyo goob kasta adduunka ku taalla ay u istaageen oo ay qarannimadii Soomaaliya lahayd ay u soo celiyeen. maanta marka dhalinyarada waxa ay uga dayan karaan waxa weeye isku duubnidii iyo midnimadii iyo daacadnimadii ay waagaa sameeyeen dadkaas oo ay guusha ku gaareen oo kale, in maanta inaguna aynu sameyno oo waxa aynu qabanayno daacad ka noqono. qof kasta adeega uu markaa ummadda u qabanayo inuu daacad ka noqdo oo lilaahi ka noqdo oo mataqaanaa si fiican ugu hagar baxo. laakiin haddii qof kasta oo dhalinyaro ah meesha doonaa joogay ama nadaafada ka shaqeeyo ama siyaasadda ka shaqeeya, hadduuse daacad ka noqon adeega uu qaranka u qabanayo ummadda, wax horumaroo la gaaraya ma jirto. marka waxa koowaad ee loo baahan yahay ee tusaalaha u fiican ay noo leeyihiin SYL waxa weeye daacadnimada, in waxa aad qabanayso aad daacad ka noqoto. marka insha Allah tacaala su-aashaas taas baa u jawaabaya. waa mahadsantihiin. xalqadeena maanta oo ku saabsaneyd 15 May intaas ayaan kusoo koobayaa. waa ku mahadsantihiin dhegeysiga, daawashada iyo mataqaanaa su-aalaha aad na weydiiseenba. waxaan rajeynayaa dhammaantiin idin rajeynayaa maalin wanaagsan iyo sanadkiisa caafimaad iyo nabad iyo baraare iyo qarannimo aynu ku wada gaarno insha Allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.